wafdi ballaaran uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada Badhan iyo Ceelbu ayaa maalintii shalay ahayd soo gaaray magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag wuxuu kulan ballaaran habeenkii xalay ahaa la qaatay bulshada qeybaheeda kala duwan kulan la qaatay hoolalka ku yaala magaalada Ceelbu taasoo lagaga wada hadlayay sidii looga hirgelin lahaa magaalada Ceelbu cashuuraha dawladda hoose ugu horeys waxaa kulankaasi daafuray oo ka hadlay gudoomiyaha degmada Badhan iyo Ceelbu oo markaasi bulshada u sheegay inay ka dhaqaajiyaan magaalada Ceelbu cashuurtii dawladaha hoose runtii aad iyo aad u qiimeynaa magaalooyinka waaweyn bulshada badan joogtay qiimeentuna ma aha inaan kuwa kale aan qiimeynaa laakiin waxaan rabnaa bulshadii badnayd ee ilbaxnimada lahayd ee majority ahayd inay dhaqaajiso cashuurtii gobolka markaan leenahay cashuurta wada qaadanaa Ceelbu ka bilaabanaa waxaan rabnaa Ceelbu afkeeda ay ka tiraahdo anagu diyaar baan u cashuurta gobolka waan isla qaadano laakiin anagu waxaan u soo qaadan jiwano cidaan leenahay la keensan shakhsi aan baran ka soo kaxaysanay magaalada ka soo kaxaysanay aan keenay in isu tababaro nidaamkii magaalada waxa weeye gobolka cashuurtiisa la midayo maalinba baahida meesha ka jirta waxaan soo baray wadada qadiimiga ee isku xidhi jirtay Ceelbu iyo degmada Ceelbu waa magaalada labaad ee gobolka ka jirta waa magaalada labaad ee population-ka sidii xoolo dhaqato tahay iyo hadday magaalo tahay iyo hadday nidaam kale tahay magaalada ku xigto weeye maadaama aan safarkay u horeynin kulnimi iyada waa inaan iyada isla qaadanaa una sheegnaa wixii loo ka baahan yahay ee dowladnimada ah inaan u sheegno iyadana dakhliga aynu soo saarno gobolka baahida koowaad yaa qaba baahida labaad yaa qaba ma waxaa qaba amnigii oo gobolka amnigaan ka wadmadaynaa waxaa qaba waxbarashadii waxaa qaba biyihii waxaa qaba caafimaadkii inaynu gobolka markaas maalinba meesha leedahay ku kicino waxaynu helaynaa oo dowladdeenu uga baahannahay inay waxa weeye magaaladan oo wax badan ku soo caanameelaysay inay ahayd bulsho isku tashiga aad ugu xoogan oo aan ognahay waxa ay ka qabteen cusbitaalka oo hadda wali aan ogsoonahay inuu qabyo yahay laakiin meel wanaagsan maraya xarumaha kale oo maxay heeday la hagaajiyay oo la dhisay qaybtood la hirgeliyay waxaan rabnaa halkii in laga sii wado halkan markii hore isku tashi ku wadnay markaana waxaan rabnaa inaan ku wadno cashuur laga qaado dadka magaalada maxay heeday ku ganacsada oo cashuur ay ku waajibtay qof kastoo ka mid ah magaalada ama mid transit ah maxay heeday ha ahaado horumarina laga qaado ama maxay heeday qof kastoo magaalada ku ganacsada ha ahaade waxaan rabnaa inaanu nidaamkii cashuuraha ka hirgelino magaaladan oo aan ognahay inay muhiimad gaar ah annaga noo leedahay dowladnimada mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelinayaa bulshaweynta reer Ceelbu kulanka kasoo qayb galay soo dhaweynta maayarka cusub Cali Jaamac iyo golaha xildhibaanada hogaaminayo runtii waxaa farxad noo ah inaanu qaad ka ahano xildhibaanadayda Ceelbu soo dhaweyntii koowaad inuu maayarku noogu yimaado magaalada taasoo ah fursad weyn oo aan helin magaalooyinka kale ee ka tirsan gobolka Sanaag marka dhammaan bulshaweynta waa uga mahadcelinaynaa ajiibkay soo ajiibeen hadalkuna dee wuu inoo soconayaa fariin baa layna faraya message-na sidii aynu uga jawaabi lahayn waa mid laynu ka sugayo oo uga falcelin lahayn intaasaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cashuurta haddaan reer Ceelbu nahay iyo haddaan xildhibaanada sida ay sheegeen aan nahay labada dhinacba waxaan diyaar u nahay maadaama kulankii u horreeyay magaalada lagu qabtay daafurkii cashuurta inaan kow ka noqono in Ceelbu u diyaar garowdo hadday guryaha ahaan lahayd laga yaabaa cashuurta inay kow ugu tahay sida fiican inay weli ka sasaan markay cashuurta maqlaan cashuurtu Ceelbu way ooleysaa Ceelbu waa wax lagu qabanayaa dowladdu way kabaysaa laga yaabaa degmada cashuurta laga ururiyo Badhan iyo taynu inagu aynu urursano in laynagu kabo weynado baahideena koowaad sheegta oo sida aynu ugu qabsano baahida koowaad oo horursanayo xoolaha gudoomiye meelaan ku shaqeyno magaalada bulshadu ay leedahay ma jirto halkan waa breefad waa macaamad maanta iyada qadada ku bixinay shirkiina caawa inaga fadhina baahida koowaad meel aan ku shaqeyno oo dad bulshada
ciddii timaadana ay nagula shifto annaguna aan ku shirno guddiduna ay ugu shaqayso magaalada guddidu hadda waxay degan tahay xafiis kara oo bulshadu ay leedahay bareefad ah waxaan isleeyahay taasaa baahida koowaad oo ah oo bulshadu ay u baahan tahay anigoo soo koobaya cashuurtaas unbaan u kacay inaan ka wada shaqayno dhammaanteen inta inaga maqanna aan gaarsiino waftidan ballaaran uu hogaaminayo maayarka degmada Badhan iyo Ceelbu ayaa bulshada reer Ceelbu waxay ugu jawaab celiyeen inay ka hirgelin doonaan magaalada Ceelbu cashuuraha dawladaha hoose waxaan ugu soo dhaweynaa sidii boqolkiiba 100 laab fulan niyad fulan iyo wada shaqayn wacan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دويلنا مايرك تجمد بران وقبلك الدمانة دي سلا صعدة يكوي شوريبا يبقى واحد دمانو وسر دويلنا وفتجا كسر غيب قال الجراح كان عاوة ينا الرجل الدمر بره وسر دويلنا وحوي وحن سر دويلنا قعمة فرن بران degmada tani bay ka mid tahay waxaan rabnaa magaalooyinka oo dhan waan ognahay inaanu daha furo cashuurtii magaalooyinkuna ay nagu daydaan gobolka ruuxiisa inaanu daha furaan rabnaa ilaa cashuur lagama qaadin kantarool iyo waxyaalaha caynkaas iyo mooyaane gudoomiyaha iyo xubnaha golaha deegaanka iyo gudoomiye oo maanta shilina ka galay iyo odayaasha kale khiyaarta oo la socdayba martiqaadkii aad naga ajibteen oo masaafada inta la eg aad u soo marteen aad baan idinka mahadcelinaynaa asxaabtii kale oo aanu jeclayn inay noo yimaadaan oo duruufaha iyo waqtigu iyagana ugu suuroobi waayeen waa u mahadcelinaynaa way jeclaayeen inay noo yimaadaan qadarta ilaahay iyo dii ilaahay kuuruya duruufii u saabku waayay binaga maqayeen sidaan filay sida kale xogaha iyaga khiyaartii hadashay ayaa bixisay waayaha iyagu sidaa uu xildhibaan cabdirasaaq u sheegayay bay u kala horeeyaan meelihii dadka loogu adeegi lahaa way naga dhiman yihiin waa ogtiino haddeer hudheel kilaa baanu maanta iyo caawa idin geynay haddii aynu leenahay meeshii idina waa degi lahayn ina caawa dhan waa ku xafladayn lahayn waa joogi lahayn halkan waa meel wacaawada caruur baa wax ku dhiganaysay ilaa maanta runtii macallimiintii iyo waalidiintii waxay raalli ka noqdeen inaynu ku shaqaysano marka baahida koowaad waa taa tan labaad waa isku xirkeena waddadii aad soo marteen sida ayna ka tahay haddeer baabuurtiina baabuur yaryar isaga badatay safar iyo haddii ilaahay ku taraag dheer la marayo oo iyadana in wax laga qabto loo baahan yahay insha allah hadba sidii ay noqoto ayaynu iyadana u kala horeysiisan doonaa oo insha allah idinkaa mas-uuliyiintii ah aad inagu kala beeqaamin doontaa inahaasaan kusoo koobaya waxba hadalka badin maayo khiyaar badan baad fadhida waa mahadsantihiin wayaan afarta qodob oo ay guddidu inoo soo jeediyeen ama guddiga maxaa golaha deegaanka iyo guddoomiyahoodaba oo ah afar qodob oo run ahaantii hortebin u leh horumarka degmada aad baan usoo dhawaynaynaa fakriyan waxaan ku darsanayaa guddoomiyuhu wuxuu ka dhawaajiyey waddadan Ceelbu ama oogo iyo gebi isku xidha inay aad u dayacan tahay runtii anu 2 jeer baan ku safray marna Mijigalan aaday marna Badhan baan aaday togaalaasi goble waxa weeyaan marna 4 saac baan ku dhibaataysnay marna ilaa muddo 2 saacadood ku dhow runtii wadadaasi wax qabad waxaan ku darsan lahaa fikri ahaan cashuurtu waxa weeyaan waa contribution bulshada iska ururiso wixii horumarin ah lagu qabto waxaana ku waajibtay dadka deegaanka iyo degmada ka tirsan inaad arrinka sii ballaarisaan maadaama rabtaan wadooyin iyo horumar ballaaran inaad qabataan sida guddoomiyaha cawd sheegay iyo deegaanku intuu leeyahay iyo magaalada inay macna magaaladii labaad ay tahay haddii ay tahay tan laga qaadayo cashuurta ah inaanu ka badnaano magaalooyinkii kale haddii ay noqoto taakulaynta ama contributionada wixii anaga laga rabo ama anagu wixii aan macna baahi ah oo aan macna xagga iyaga macna soo maraya in loo ogaado oo aan nala ku cabirin tuulooyinka yaryar oo naga saamiga yar waxaan rabnaa mar labaad iyo mar saddexaadba downtown reer Ceelbu inaan cashuuraha inaan xoog saaro dawladnimadu waa cashuur
website كده كده يستوي وحكي قبته معهم هاي وحي نقصوا هجاجي سفر عن وقلب قلبان وحياة بدل قاري قال عكتيسة أنا قاول لي حافظ البواد وقتهن قبة تلفون يسافشوا وحوي واحد يسلوه wax badan oo wax laga qabtay oo lagu horumaray oo lagu liibaanay baa jira oo waxa aan ka ahayn horgal u ahayn haddeena wixii la qabanayo oo cashuurtu ka mid tahay diyaar baan muhiimadda waxaan rabnaa inaan wixii aynu ballan qaadno ka dhaweyno cashuur hadday tahay horumar hadday tahay anagu dumar haddaan diyaar baan meelaha iska taagno haddii ay tahay mid dawlad ka socda iyo haddii ay tahay oday wax garada iyo haddii ay tahay golo deegaan inaan ka dhaweyno muhiimadda ku dhaqaaqno reer ceelbu gaar waxaan u farayaa waxaan laga dhawaajiyay halkan oo laynoo sheegay inaynu ku dhiirano rag iyo dumarba oo intaan balanta qaadno inaan weydayn oo shaqayno marka wixii lasla soo qaado haddii laga dhaweeyo waa qurux badnaadaan taakadii la rumayaa taaka kale sii bilowda kanahay wixii horumar ah qalbaadka hadduu gaadhay dal iyo daba diyaar baanu nahay raggaan waxyaalo ka tabtabanayna oo leenahay iyagaa jaanjaamiyey iyagana waxaan leenahay ilaahayga noo sakhro اسكت دوبنا الله كبير. واحد بدنا سيدا بصور شيء جوان فوق بسنة. سيدا هرانا مركي هذا كهران تيسي حلا ساري لبا قضبة مرتي لساري سيدا استفتاح يجاري بعقله. حرمتن وين هو يدي للانكا. واحد مستي ديجانكا سيجارة واحد أوران كرا. ما دام الرضياش هو الشيء شيء ملها $5 واحد مرتي. laga horeeyay bulshada aan ku gaaray iyadoo waqtiyo maaragtay waxaan ku raadayay badan dadku soo mareen haddana alxamdulillah waxay noqdeen maanta wax muuqda inta markaan ka soo gudbo maanta in cashuurta si guud loo ururinayo oo dawladda ururinayso ayaa maaragtay laga dhawaajiyay taa waa qab badan bay ka kaafiday alxamdulillah waxa ku xigtay xaruntan hadda maaragtay saylada oo qaybtan qabyada ah iyadana insha Allah taala waa mid miiska loo saaran cid kasta wax ka qabanaysa aan ku soo dhaweyn badan hooyada hooyooyinka deegaanka isbuucii la soo dhaafay waxa miiska la soo saaray guriga degmada miiska la soo saaray kaasna wuxuu ahaa mid maaragtay la qaato oo insha Allah sida ugu dhaqsaha badan aan jecelahay qaybteeda inaan ka qayb qaadano waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag